الرحيم أنا مجاعي قال لي إنجنير محمد حاج عثمان ماريها جود شركة بيمو سيفل إنجنيرين أو شركة دي قندراس كقاعدة تي اسمها دقمة ياخشي مدن يال وعن شركة جريد أقبتي عبشو شركة دا دبعتكو دعدي أو كذا دعدي قندراس كاس وقت ما أنت اللي جوجو وعن كعبنا arrimaha soo socdo shirkadanu waxay heshiis dhismaha la gashay maamulkii degmada Yaaqshiid koodii bishii February 2018 heshiiskaas oo noo u dhaxeeyay shirkadda oo anaga aan u matalayo maarayaanka ahaa iyo maamulka degmada Yaaqshiid oo xilligaas gudoomiye ka ahaa gudoomiye Ahmed Xasan Geedow shirkaddu waxay kula heshiisay in ay dhisto xarunta degmada Yaaqshiid annagoo soo marnay processyo iyo xaalado kala duwan oo ku saabsan dhismaha shirkadda iyo naqshadaheeda ku saabsan ugu dambeyntii waxa isku fahmeen shirkadda iyo maamulka degmada in loo dhiso xarunta degmada Yaaqshiid naqshadaas hadda idin muuqata qaabkeeda sidaan u yahay dawladdu iyo xaaladaheeda iyo isbedelkeedii oo aad Soomaaliya oo dhan ay taqaano waxaa isbedel ku yimid maamulkii degmada waxaa xilkii la wareegay gudoomiye kale cusub khayr iyo wanaag ba Allah siiyo waa shirkadu uu ixtiraamay wuxuuna siiyay qadarin uuna wacay waxaan isla fahanay in shaqadii oo istaagtay xilligii gudoomiye Axmed Geedow kadib dib loo bilaabo shaqadii dibaan u bilownay waxaan ka bilownay qaybta labaad oo dabaqa labaad ah garoon floorka dhamaaday first floorka aan bilownay waxaan oo dhagax dhigay oo waxaan dib noogu howlgeliyay markii horena waxaan dhagax dhigay gudoomiyihii dhinta Allah u naxariiso injineer Riisow markii labaadna waxaa dib u howlgeliyay isla injineer Riisow sida aad ku arki doontaan muuqaalada insha Allah taala waxaa la wareegay gudoomiye Cabdiwali Axmed Shirbow asagana khayr Allah siiyo shaqo waa la shaqeynay waxaan gaarsiinay heer gabagaba oo ay noo dhiman tahay in aan finish gareyno sida inaan salaaxno iyo inaan tayl ku sameeyno sida ka muuqata muuqaalada arki doontaan gudoomiyaha cusub ee hadda loo soo magacaabay 4 bilood 5 bilood ka hor loo soo magacaabay degmada asagana uu nawacay shaqadii aan dib u bilownay asagana mar saddexaad wajiga saddexaad oo shaqada dhul gurigii mutuneelaan saarnay waa salaaxnay rinjiyan marinay waa gabagabeynay gurigiyo dhameystiran ayaan xoogaa isgaf yar nagu dhacayo isfaham waa gudoomiyuhu waxaan ugu tagay aniga shakhsi ahaan maareey ahaan waxaan ugu tagay xafiiskiisa anigoo rabo inaan kala hadlo arrimaha dhismaha iyo arrimo ku saabsan gudoomiyaha degmada Yaaqshiid si xushmad dara ah oo maxaa la yiraahdaa bahadilid oo qof Soomaali oo jinsiyad Soomaaliya sheegto oo samuunta in loo dhaqmo ayuu ila dhaqmay asagoo isticmaalay waxaad ku shaqeynaysay gentleman agreement wax la yiraahdo ama heshiis afeed ayaa ku shaqeynaysay wax heshiis oo aad ku dhisaysay degmada Yaaqshiid ma jiraan gudoomiyaha degmada wuxuu iigu sii daray waxaan u aqoonsanahay in si hadur ku shaqeey jirtay wixii iga horeeyayna hadii heshiis jiraanna waxaan u garanayaa ama u qaadanayaa saacadan laga bilaabo in ay tahay wax kama jiraan waxaan bulshada Soomaaliyeed iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo in allaala intii Soomaaliya ay arrinkan khusayso aan u soo bandhigayaa in shirkadaanu ay heshiis la gashay maamuladii ka horeeyay maamulka hadda joogo gudoomiyayaasha ka horeeyay gudoomiyayaasha hadda joogo heshiiskii aan la galnay oo aan kala saxiixanay waa kaas hadda meeshaad idinkaga muuqdo shirkadda Bimo anoo maareeyaheeda ayaa ku matalayay halkaana waxaa saxiixay gudoomiyihii asaga ka horeeyay gudoomiye Axmed Shirbow sidoo kale heshiisyada aan wada saxiixanay waxaa ka mid ahaa heshiis aan la saxiixanay gudoomiyaha asaga ka sii horeeyay asagana sida idin muuqato heshiisyadii aan galnay iyo saxiixadii aan kala saxiixanay waa kaas idin muuqda walaalayaalow haddii Soomaalinimo ay jirto haddii ninkii qofkii dalka dhisayay iyo shirkadii dalka dhisaysay iyo shirkadihii Soomaaliyeed ee dalkan in ay dhisaan ay u bareeraan riskiga maanta wadanka ka jiro iyo xaaladaha adag ee dalkan ka jira inay ku shaqeeyaan dadkii u bareeray
iyo qofkii kusoo talagalay in meelihii maraafiqil caamka ah ummadda loogu dadaalayay in isku si loola tacaamulo oo isku yani isku kiis ay noqdaan oo isku dhaqan ay noqdaan oo isku miis la fariisiiyo arrinkaasu annaga wuxuu nagu reebay tiiraayo tiro badan wuxuu na geliyey niidijad tiro badan wixii aan ka rabnay dalka iyo dadka in aan aqoontayna iyo dadnimadeyna iyo dhalinyarnimadeyna iyo xoogga iyo awoodda dalka aan u haynay guddoomiyahaas wuu baabi'iyey hankayna wuu baabi'iyey walaalayaalow haddii soomaalinimo ay jirto muslimnimo ay jirto ay xilkasnimo jirto shirkadaas dhibkaas intaas dhanaa ku dhacay shaksiyanna waxaa hadalkaas mutaxan ee ceebta ah ee aniga aan ka xishoonayo waxyaabaha qaar oo laygu yirahdo inaan meediyaha iyo wasaa'il iclaamka aan ka sheego arrinkaas ayaa nagu dhacay soomaali waxaan ka rabnaa inay kasoo jawaabto abaalkayna hadduu yahay war biyo degeen ah ummadda iyadoo loogu shaqaynayo gurigaas quruxda badan aan u dhisnay haddii ay abaalkeena uu yahay gentleman agreement yaa ku shaqayseen iyo heshiisyada aa gasheen waxba kama jiraan waayo iyo haddii kale waxaan rabnaa in ay kasoo jawaabaan cabashadeenana waxaa si toosa ugu socodsiinaynaa guddoomiyaha gobolka oo aan weynay qof noo xiriiriya ama noo horfariisiya si aan u gaarsiino ayadoo media anagoo isticmaalin aan cabashadeena wayna nagu adkaatay inaan helno sidaas darteed cabashadeeda waxay si toos ugu socotaa guddoomiyaha gobolka banaadir iyo mas-uuliyiinta sarsareed dalka arrinkan waxaa idinka codsanayaa inaadan yani yaraysanin arrinkan waxaa idinka codsanayaa inaadan fududaysanin arrinkan wuxuu baabi'inayaa quluubta shacabka soomaaliyeed iyo shirkadaha soomaaliyeed iyo dhalinyarada soomaaliyeed oo dalka wax u baratay wuxuu jawaab arrinkan u noqonayaa haddii laga aamuso in dalkan cid ku dhiirato ama maalgishata ama xarumaha dowladda dhista inaan la helin mas-uuliyiinta qaar ee dalka iyo dadka loo soo dirayna in intaan hadda aad arkaysaan iyo in ka badan ay samayn doonaan ay dadku ku tuman doonaan dhibaatayna doonaan hadduu ilaah yidhaahdo waxaan mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afaraad iyo mar shanaad aan yani cabashadeydan u dirayaa oon ogeysiinaya aan rabaa inuu gaaro guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho waxaan kaloo rabaa shacabka soomaaliyeed gaar ahaan shacabka reer yakshiid annagoo rabna in aan wanaag samayno dalkayna aan u adeegno dadkayna aan u adeegno xarumo dowladeedoo qurux badan dalka aan u dhisno hanka nagu jirana oo han weyn u ahaa waxaa nala gaarsiiyey maanta in aan xafiisyadii dowladda xafiiskii aan ka shaqaynaynay xaruntii aan ka shaqaynaynay oo ayadoo war a biyo degayna aan ka soo bilownay meesha aad aragteen oo aad muuqaalkan ku arkaysaan iyo maanta meesha joogta nagoo soo gaarsiinay in cagtama soo saari kartiin xafiiska buuqa iiga daa in noola yidhahdaan nala gaarsiiyey ummadda soomaaliyeed waxaa rabnaa inay arrinkan kasoo jawaabto hadday soomaalinimo jirto muwaadiniinta soomaaliyeed waa isku mid xuquuq siman ayay leeyihiin waxaan idinka codsanayaa in arrinkan laga soo jawaabo warkeyga waxaa kusoo ganaanudayaa war xigmad badnaa uu yidhaah brofesor jawaari oo ahaa dowgaa kiin horeey derbigaaw warkaada ku horeeyey derbigaa waaye warkeyga oo ii horeeyey waxaa waaye in cabashadan aan soo gaarsiiyey walaalayaalow dalkan waa usoo shaqaynay dadkana waa usoo shaqaynay maanta meesha aragteen waxaad aragteen aan qabanay waxaan rabnaa waxaas iyo wax ka wanaagsan dalka inaan u qabano hankayna iyo niyadaynana way baaba'day waxaana baabi'iyey gentleman agreement yaa gashay iyo xafiiska buuqa iigadaa iyo dhibaatooyin tiro badan oo aan ka tirsanayno guddoomiyaha gaar ahaan maamulka dhan mar wada dhahayo guddoomiyaha degmada yakshiid muuse geesey jimcaale sidaas darteed guddoomiyaha gobolka banaadir haddii aan annaga dalka aan abaal ku leenahay xaruntaas quruxda badan leh aan kusoo aan yani wakti iyo juhdi aan gelinay inaan dhisno ayadoo marxalo adag lasoo marayo 2 sanana aan dul taagnayn gurigaas inuu hirgalo abaalkeena guddoomiyuhu wuxuu ka dhigay waxaad gasheen heshiis afeed wix iga horeeyay heshiiska ay galeen aan ima khuseeyaan iyo warqadaan laygu wareejiyey warqadaan wareejinaa iyo erayo kale oo inta aan ka sheegi karin oo soomaali oo dhan barakicinayo dhibaato abuuraayo maraba inay dhibaato abuuranto laakiin waxaan rabaa in laga soo jawaabo cabashadeyda ilaahi subxaanahu watacaala wuxuu yihi hal jazaau lixsaani ila alixsaan marka waxaan rabaa in laga jawaabo dalka iyo dadka waxaan u samayna hadday wax xun yihiinna in la yidhahdo dad xumaatihiin waxa idin laga sheegayaa jiro dalka haddaan horumarinay oo wax wanaagsan aan kusoo kordhinayna soomaali inay kasoo jawaabto dal iyo dibad meeshay joogaan guddoomiyaha gobolka banaadirna asagaa dadkan mas-uul ka ah ilaahayna asagoo kula xisaabtamaa nebiga sala allahu alayh wasalam wuxuu yidhi kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyatih walimaamu raacin wa huwa almas-uulu can raciyatih asaa mas-uul naga ah gafkaas iyo dhibaatadaas iyo niyad xumadaasaa nagu dhacday anagoo maareeyaha shirkadda biima ah cabashadaas waxaan u gudbinayaa si gaara waa ku celcelinayaa duqa magaalada muqdisho inuu arrinkaas soo farageliyo
si degdegana jawaab aan ugu helno hada wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakatu